باقنا وداد maanta ay tahay taariikhda 31 December 2024 kulan ay isugu yimaadeen haweenka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan sida haweenka ururada bulshada rayidka haweenka gobolka Banaadir haweenka siyaasiyiinta gabdhaha ardayda jaamacadaha iyo dugsiyada waxbarashada oo ay martigelinayso wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay halkan ku soo gudbinayaan baaq nabadeed haweenka Soomaaliyeed waxay ka xun yihiin colaadaha iyo beegsiga ka baxsan shariicada Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee ka soo cusbaanaaday qaybo kamid ah dalka waxay ku baaqayaan in la joojiyo colaadaha u dhaxeeyo dadka wada dhashay beegsiga iyo barakicinta shacabka maatada ah ee sababay qasaaraha baaxadda leh ee isugu jiraan dhimasho dhaawac iyo barakac haweenka Soomaaliyeed waxay ka codsanayaan odayaasha dhaqanka culumowdiinka dhalinyarada inay ka qayb noqdaan hanaanka geedi socodka nabadeynta dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaano kamid ah dalka maadaama dhibaatada ugu weyn ay soo gaarayso hooyo Soomaaliyeed oo ku weynayso ilmaheeda walaalaheeda walaalkeed isageedaba sida daraadeedna aan loo dul qaadan doonin in dagaal sokeeyo ka dhaca dalka waxaan ka dalbanaynaa laamaha dawladda qaybahooda kala duwan ee ay qusayso arrinkan in si dhab ah ugu soo baxaan deegaamada ay ka jiraan colaadaha sida ugu dhaqsaha badan loo geeyo ciidamo amniga si loo kala dhaxgalo dadka walaalaha ah ee fidnadu dhex taalo iyo in amniga goobaha ay colaaduhu ka socdaan la sugo si loo kala qaado maleeshiyaadka hubeysan ee isku hor fadhiyo goobahaasi iyo in ay ku soo dabaalaan sareynta sharciga nabadda iyo kala dambeynta haweenka Soomaaliyeed waxay ugu baaqayaan dhinacyada walaalaha ah ee ku dagaalamaya qaybaha kamid ah dalka in dagaalka ay shuruud la'aan joojiyaan miiska wada hadalka lagu xalliyo wax walba oo khilaaf keeni kara isla markaana la ilaaliyo xuquuqda dadka dirmageydada ugu dambeyn haweenka Soomaaliyeed waxay Allah subhanahu wa ta'ala ka baryayaan in naxariista janno ka waraabiyo dhammaan inta ku dhimatay dagaalada dhacay inta dhaawacana in Ilaahay noo boogadhayo ummadda Soomaaliyeedna bogooda burcad Ilaahay isku mariyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.